ku nool dalka Afghanistan ayaa waxaa lagu arkay markii ugu horeysay labadeeda dhaban oo ay ku kala qoran yihiin Allah iyo Muhammad kuwaasoo ka turjumaya Ilaahay iyo rasuulkiisa magacyadooda. dadkii arrinkaasi arkay ayaa waxa ay muujiyeen arrinkan ay tahay mid ka mid ah mucjisaadka Ilaahay. qaar ka mid ah dadkii halkaasi joogay ayaa wejiyadooda waxaa ka muuqanaya qiiro markana ay la tacajubeen arrinkan gabadhan wejigeeda ku qoran oo ah Allah iyo Muhammad. haddaba daawadu ku cibro qaado kadib markii aad daawatid muuqaalkani in Ilaahay wax kasta uu awoodo isla markaana muuqaalkan uu ka mid yahay mucjisaadka Ilaahay oo markasta lagu arko dunida. ما دواك ولا ما دواك ما ذكراها ما نخبط كريتيف ولا كتيرسو ما تشار محتوى ولا رخوي خد الله سرتو فراولي ودم لغين ذكي ورقصلو بعد مزيد كونا سمجوا داري دم بلات مدالم بلات مودلم بلان مثل مختو كلمات زمان خبر بلات من اليوم ما مخل الله نشتغل الله خير جدياني وسر شريف کړ د وګمي پلار حجر رسول خان وایي کله چې وګما د کوټي ترانه نو تا ویریدل ښکارېده او پر مخې د الله ترڅنګ د پیغمبر نوم راښکاراوه. وکي ولري دا وای دا څنګه راغی چې هغه وټه د بندر سره راځي سر په مخه لاس ما چې د مخولې د وخت په فاتې جوړه وکړه مخکې شی وګلی کنه یو ماشوم په وجود د قرآن کریم آیتونه